madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishii Juun ee 2022 u magacaabay Xamse Cabdi Bare inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Magacaabistiisa kadib waxaa la horgeeyay Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si codka kalsoonida looga helo xildhibaanada Golaha Shacabka. Ra'iisul wasaaraha markii codka kalsoonida uu ka helay xildhibaanada waxa uu haystay muddo 30 cisho inuu ku soo dhiso xukuumad cusub oo dalka hogaamin doonta 4 sano ee soo socota. Xamse Cabdi Bare ayaa ku adkaatay inuu soo dhiso golihiisa wasiirada cusub, taasi oo ku noqotay dhibaato aad u weyn maadaama waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso xukuumaddiisa cusub uu ka dhamaaday. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay Golaha Shacabka si uu weydiisto in loogu daro muddo 10 cisho si uu soo dhiso golo wasiiro oo lagu qanci karo oo ay ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Kadib markii loogu daray 10 cisho inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada cusub, waxa uu bilaabay inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada sida culmaawidiinka, aqoon-yahanada, ururada bulshada rayidka, dadka baahiyaha gaarka qaba si ay taladooda ugu biiriyaan xukuumadda uu soo dhisayo iyo in ay noqoto mid waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. Xamse Cabdi Bare ayaa la sheegay in culays kala kulmayo dhanka maamul goboleedyada qaar iyagoo doonaya in ay ku lug lahaadaan xukuumadda uu soo dhisayo, waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaraha uu diidan yahay in xukuumaddiisa ay dad gaar ay ku lug lahaadaan. haatan waqtiga loogu daray ee 10 cisho waxaa ka dhiman maalmo yar iyadoo la sheegayo in liiska golihiisa wasiirada cusub uu gacanta ku haysto kaliya dhiman in lagu dhawaaqo.